بسم الله الرحمن الرحيم أنا قدوميها بيلها جريروين عاصمة مامول قولاتك قلمدو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan leeyahay waxaan ku salaamay salaanta islaamka aniga oo magacayga Faadimo Maxamuud ku magac dheer Faadimo Nuune saaka bees jareerweyn gaar ahaan dhuusamareeb qolada degan bees jareerweyn waxaan u taaganahay doorashada qof iyo cod aan u soo baxno waxaan u maleeyaa magaalada maanta hadda anaga bees jareerweyn qof ku haray ma jiraan dhamaanteen kaarka aqoonsiga doorasho qof iyo cod inaan codkeena ku cilbaxnaan ugu talagalna waa soo baxnay dayaxan joognaa saaka doorashada kaarkan qaadanoona ma haddaasna waxa u sugnaatay Alle subxaanahu wa ta'aala ka soo madaxweynaha Cabdi Qaari Qorqor duqa magaalada gadoomiyaha dhamaantiin waa mahadsantihiin maadaama guddiga doorashooyinka ay noo keeneen inaan ku cilbaxno doorasho qof iyo cod ah saakana waa u taaganahay dhamaan reer Galmudug waxaan ilaahay hadduu madaxweyne yahay hadduu gadoomiye yahay hadduu gadoomiye ku xigeen yahay waa mahadsantihiin waa idin salaama dhamaantiina nabad ahaado بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول هلا مجا وكيلك أجازك بيش جرير وينه أجاز يحيى أجاز سالم أجاز موسى وكيلنا كأه كنا نول عاصمة قلمدوك وحن تاجر سنة هاي دورشة خفي عد لما أنت هنا قومي بيش جرير وينه هذا وتاجرنا وحان أمهد علينا جد دروشين كأنوجي مت عاصمة مقدسه وحان كانوا تاجرنا مدحونا جمهورية الديمقراطية الصومالية وحان كانوا تاجرنا ماملك قلمدوك مدحونا هذا أحمد عبد القادر خوخور قدوميه هذا أيان تاجرنا مركز سود وهذا أدبان وتاجرنا دورشة خوف يعد وحان جوجنا قلمدوك حافظ الضيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan isku soo baxnay doorashooyinka qofka cod maanta waa maalin noo farxad ah waa maalin noo dhalatay waa maalin aan sugeynay oo waa maalin beesha jareerweyne farxad ay u muujinayso galmudug dhuusamareeb marka waan ku faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay anagoo ah beesha jareerweyne saan u dhanahayna waa kooban بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah Ibrahim Ali Cabdi kuna hadlay afka dhalinyarta beesha jareerweyne maanta waxaan joognaa xarunta ama centerka xaafadda dayax oo la isugu keenay dhalinyartii iyo odayaashii iyo oqaashii beesha jareerweyne kuwaas oo intoodaba diyaar u ah in ay u codeeyaan kuna cid baxaan codkooda kana tirsan dhalinyarta iyo odayaasha iyo nooc kasta isugu jiraan waxay diyaar u yihiin ama ay maanta meeshaan isugu imaadeen inay taageeraan doorashada qof iyo codka ah inay soo dhaweeyaan guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Galmudug kuwaas oo noogu soo martiyay ilaa dawladda dhexe sidaas darteed waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqono codeeyayaasha doorashada qof iyo codka ah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka oo fursadan inoo siiyay in aan uga faa'iideysano sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hay'adda Niiro qaybteeda laanteeda Galmudug taasoo ayadana noo suura gelisay maanta in macnaha ka mid noqono dadka macnaha qaato kaararka ama aqoonsiyada Soomaalinimada ama national ID-ga marka sidaas darteed maanta waxaan meeshaan isugu imaanay oo dadkan tiradooda aad u badan tahay isugu imaadeen diyaarna u yihiin in ay codeeyaan kuna cilbaxaan codkooda ayna doortaan qofkii markaas ay aragtidooda u arkaan inuu markaas wax u tari karo ama wax u qaban karo haddii uu noqdo madaxweyne haddii uu noqdo gadoomiye haddii uu noqdo markaas xildhibaanada golaha deegaanka qofkii markaas ayaga markaas codkooda ay u baahan yihiin ku doortaan taasna waxaa cadeynayso warqadan oo qof kastaba uu diyaar u yahay inuu ku cilbaxo haystana qof kasta oo meeshaan ka tirsan sidoo kale bulshada isugu imaada meeshaan waxaa ku boorinaya ama ku dhiirigelinaya in ay iska diiwaan geliyaan doorashooyinka oo qof walba warqadiisa ay anfacdo oo qofna uusan qof eedin oo markasta oo imaado doorasho ama markasta ay imaado in qof loo codeeyo si uu uga codeeyo waxaana ka taageeri karto warqadan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا قدوميها بيلها جريروين عاصمة مامول قولاتك قلمدوك waxaan maanta qaadanay kaarkii codeynta dawladda federaalkana ay sheegtay Galmudug stateska Galmudugna laga ansixiyay guddiga doorashooyinka noo imaadeen anagoo ah beelaha jareerweyne oo degan caasimada maamul goboleedka Galmudug maanta waxaan soo doonanay kaarkii codeynta ama aha kaarkii lagu codeynay aan maanta qaadanay anagoo ah odayaasha beelaha jareerweyne u dhan kastaba diyihiin dumarka diyihiin caruurta deegaanka xaafadda aan degannahay xaafadda dayax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلامة يا مضحدة دن قور كاريا سلامة وعن سلامة قدوميها عن سلامة يا عبد السمت وعن سلامة يا حكهايها عد إدار الشق عن ودنها باش جرير وين ساقنا هاي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan idin leeyahay waxaan ku salaamay salaanta islaamka aniga oo magacayga Faadimo Maxamuud ku magac dheer Faadimo Nuune saaka bees jareer weyn gaar ahaan dhuusamareeb qolada degan bees jareer weyn waxaan u taaganahay doorashada qof iyo cod aan u soo baxno waxaan u maleeyaa magaalada maanta haddaan anaga bees jareer weyn qof ku haray ma jiraan dhammaanteen kaarka aqoonsiga doorasho qof iyo cod inaan codkeena ku cilbaxnaan ugu talagalna waa soo baxnay dayaxan joognaa saaka doorashada kaarkan qaadanoona ما حدثنا حق سجنات الله سبحانه وتعالى كسكو مدحوينها عبد القاري قرقر دوق مجالده قدوميها دمانتين ومهسنتين ما دام جودك دورشون كأن نو كانين إن عن كل البحنة دور شقف في عده ساكنة وأتاجنا هاي دمان رجال مدق وحد الله هدو مدحوينية هدو قدومية هدو قدومي كحجيها ومهسنتين وعد سلامة دمانتين نبض هذا